تعليني علم لقوتنا kayigeenna laftigiisa waxaa laga isticmaalaa ama laga isticmaali jiray luuqado ka farcamay af soomaaliga oo la bedelay bulshada qaarkii waxa ay afkan u taqaanaa af jinni meelo kalena waxaa looga yaqaanaa af shimbireed waxaana badanaa isticmaala ciyaalka yareer si dadka waaweyn ama ciyaalada kale aanay u fahmin hadaladooda af shimbireedka sida qaar badan oo inaga mid ay hore u maqleen waxa uu ka samaysmaa kelmadihii caadiga ahaa oo la dhex geliyo xarfo sida xarafka fa ba ja ma iyo xarfo kale tusaale haddaynu usoo qaadano sida loo sameeyo jumlad ka mid ah luuqadan sirta ay af shimbireedka wafaxafaan dafoona faya faamafaanta fa ifina faan kufuuha fad lafo lofuuqa fad ifisifir afah ofoo lafayo fidhafah dafo afaf shifimifirafeed ruuxa af soomaaliga yaqaana marka uu maqlo luuqadan waxaa moodayaa inay tahay luuqad kale hase haatee marka uu u fiirsado waxa uu arki doonaa in xarfihii caadiga ah ee kelmadaha loo dhexaysiiyey xarafka fa waxaa la yaab leh in tabta af jiniga ay ciyaalka soomaalidu isticmaalaan iyadana looga isticmaalo meelo kale oo dunida ka mid ah marka laga yimaado af shimbireedkaanu kor kusoo xusnay waxaa jira afaf kale oo geyga soomaalida laga isticmaalo oo u muuqda inay yihiin afaf sir ah afafkan waxaa ka mid ah af ay ku hadlaan dad dhalinyaro badan oo ku dhaqan magaalooyin ka mid ah kuwa ku yaala dhulka soomaalida waqooyigeeda afkan sida af jiniga aynu kor kusoo xusnay waa af ay dhalinyartan u isticmaasho marka ay doonayaan inaan la fahmin waxaana ay ku magacaabaan ilaamos sida aad ka arkaysaan magaca afkani waa af soomaaligii caadiga ahaa oo dibdib loo akhriyey ama kelmadihiisa la isweydaariyey talayaabka igu dhalisay ayaa waxay tahay haddaba in aan ogaaday in afkani uu yahay mid aada u facweyn oo qoraaga soomaalida dirsin cabdalla cumar mansuur buuggiisa taariikhda bulshada iyo afka soomaalida ayaa waxa uu ku sheegay inay jiri jireen dad ku noolaa dhul ka mid ah saldanadihii cadal iyo ifad ee ka hana qaaday geyga soomaalidu degto waqooyigeeda isagoo soo xiganaya seruli oo ah aqoon-yahan talyaani ah oo dirsay soomaalida ayaa waxa uu sheegay in xarluhu ay ku hadlaan afkan aynu ka faalloonayno ee sirta ah waxaana ay u badan tahay inay yihiin kuwii afkan iyagu ikhtiraacay xarluhu haddaba sida ku cad buugga waxa ay ahaayeen berigii axmed gurey dad gooni ah kana soocan soomaalida kale taasoo ay caddaynayso in buuggii futuuxulxabash u kala saarayo ciidamadii axmed gurey soomaali xarla malasay iyo carab dadkan haddaba qadiimka ah wakhtigan iyagoo iskood u taagan ma jiraan hase haatee waxaa cad inay ku dhex milmeen bulshooyinkii kale ee muslimka ahaa ee ku hareeraysnaa sida soomaalida iyo canfarta oo weli laga dhex arko qabiiladooda magaca waxaa haddaba macquul ah in kadib markii ay ku dhex milmeen xarluhu bulshooyinkan kale ee uu afkoodiina lumay ay samaysteen luuqadan is-afgarashada ah marka ay ku dhex jiraan dadka kale jaruuli waxa uu tibaaxayaa in kelmadaha soomaaliga ah ee la yaqaan ay dibdib u akhriyeen ama ay isweydaarin jireen sida inay yidhaahdaan bagadh dise xamaa oo gebigooduba ka yimi kelmado soomaaliya oo dibdib loo akhriyay ama kelmadihii la isweydaariyey afkan xarlaha ay ku hadlaan ee ilaamoska imka geyga soomaalida looga yaqaano maaha afka keliya ee sirta ah ee lagaga hadlo geyga soomaalida hase ahaatee waxaa jira in qabaa'ilka soomaaliyeed ee la yidhaahdo waa laga tiro badan yahay inay iyaguna leeyihiin afaf ay isku fahmaan dhexdooda oo aan dadka kale sidaa usii dirsin isla buuggiisan cabdalla cumar mansuur waxa uu ku sheegayaa in luuqadahan sirtahay ay ka kooban yihiin erayo af soomaali ah oo la farsameeyey tusaale waxa uu usoo qaadanayaa ereyga san oo lagu bedelay falka uu qabto sida in la yidhaah uriye ama in erayo asalkooda soomaali ahaa xarfahooda la isweydaariyey sida in fayowdahay loo qoro ama loo akhriyo iyo fantahay erayo af carabi asalkoodii ahaa oo iyagana la bedelay sida in lo-da lagu magacaabo albakhar ama bacayr erayo qadiim ah oo af soomaaliga kala lumiyey ama raadadkiisii laga sii arko kelmadaha qaarkood sida baxrin ama baaran oo micnaheedu yahay hadal af soomaaliga kale waxa uu weli ku hadhay micnaha ka baaraandeg oo ah ka fiirsasho iyo erayo kale oo aan la garanayn asalkooda aqoon-yahanka caddaanka ah ee j w c kek oo qoray buug ku magac dhawan ee grammar of the somali language ayaa waxa uu dheganihiisa ku xusay tusaalahan oo uu ka helay oday ka mid ah qabaa'ilka aynu soo sheegnay kalantankeena igula kelin reer miyida yayna dhaadine oo micnaheedu yahay afkeena igula hadal reer miyigu yaysan na fahmine haddii aad ka hesheen xogaha fideoga aanu kusoo gudbinay falan asxaabtiina la wadaaga like iyo subscribe tana ha ilaabina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu